الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وصحبه أجمعين. أما بعد السلام halkan waxaan ka cadeynayaa maanta anigoo ah gudoomiyaha xusbiga kulmiye ee balcaan Saciid Cabdi Muuse magacayguna yahay gebi ahaanba shaqadii aan xusbiga u hayay xusbiga leeyahay kulmiye inaan iska casilay shaqadayda xubinnimadayda iyo kalsoonidayda aan kala noqday aan kuna fiiray xusbiga leeyahay wadani iyada oo ay sababtaasi ay kaliftay shaqada inaan iska casilo xusbiga leeyahay kulmiye inaanu markaan magaaladaydii eegay wax qabad la'aantiisa aanu magaalada haba yaraatay wuxuu ka qabtay aysan jirin inuu hadee xukmayo daryeel ayna magaalada ku qabin inuu hadee xukmayo aanu haba yaraatay wuxuu qabtay magaalada aysan jirin mujtamacaygii aan la noolaa ee la deganaa markay arkeen inay kulmiye aanu haba yaraatay waxba u qaban imakana wax u soo wadin ka wada baydheen ay ku shubteen xusbiga leeyahay wadani baa leeyahay halka balcaan waxaan filayaa 3576 cod ayaa laga helayaa oo xisbiyadu ka helayaan taas laajigeed marka waxaan aragnay kulmiye inuu ka laabtay oo uu ka kaaftamay magaalada hada balcaan leh codkaana maanta uu iska yeeshay wadani uu iska yeeshay magaalada gebi ahaanteedba xisbiga leeyahay wadani ayay maanta u sacabatumeysaa soo dhaweynaysaa magacaygu waa Sidiiq Xaamid Dirir waxaan ahaa gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye ee magaalada balcaan leh marka waxa weeyaan waxaan ka cadeynayaa maanta inaan iska casilay xubinnimadii iyo gudoomiye ku-xigeennimadii iyo taageeradii aan hayay xisbiga kulmiye inaan iska casilay oo aan ku biiray xisbiga wadani waxa weeye cod iyo cudud iyo caqliba aan waxa weeye la garab taaganay taageerada xisbiga wadani aan la garab taaganay taasoo sababteedu ay keentay waxa weeye 7 sanadood wixii hore xisbiga kulmiye oo magaraysa mucaaradka ahaa mucaarad wallahi inuu wada shaqeynayni balcaan kulmiye wada ahaa tan dambena markii waxa weeye ragii ku guuleystay oo halgamay Axmed Silaayo soo saaray baan xisbiga kulmiye 7 sanadood ee waxa weeye xisbiga kulmiye maanta uu tirada hayay balcaan iyo deegaankaygi waxa loo qabtay ma jirto waxa weeye kulmiye uma sameeyo caafimaad waxa weeye xanaano looma sameeynin waxa loo qaadaa meel burco oo jirta 190 kilomitir u jirta ayaa qof dumar markay foolato ama qofka dhalaanka ay xanuunsado loo soo carara wadani waxaan ku rajeynayaa insha Allah inay cadaalad iyo horumarin ay noo horseeto wax qabad degdeg ay ka qabato deegaankaygi awee saa ogsoontiin abaar kulul baan soo martay 9 bilood ama 10 bilood in ku dhow ayaa waxa weeye balcaan leh haraad iyo dhaawis iyo booyada ku dhaansanay xisbiga kulmiye oo ay soo gudbeen waxa kale oo dambeeyay shubankii iyo xanuunkii garaysa kaloori ku dhacay balcaan leh ee caalamku laga wada ogaa kaasoo waxa weeye dhimasho geeridiisa iyo waxa weeye bukaanjiifkiisuba wal aanada waxa bukaanjiifkii oo sii diiday balcaan joogo xisbiga kulmiye hal sabab oo tirsan maayo laakiin wadani uu noo soo gurmaday xirsi cali xaaj xasan ayaa ilaahay khayr siiyay isagoo wata doctorka yimi London noo yimi waxa dawladina isaga loo keenay kaalmaad uu caan soo gaarsiiyay sidaa darteed waxaan ku aasanay mar haddii aan waxa weeye aan wax xariisan oo ay kulmiye inaan maanta taageeradayda kala noqono codkayga iyo cududayda taageeradayadana aan si toos ah aan ugu biirno xisbiga wadani kulmiyana isaga waxa weeye heerkaas gaarsiiyay anigoo ah xoghaye xisbiga kulmiye balcaan leh halkan ka cadeynaya maanta iska casilay xubinnimadii aan hayay xisbiga iyo taageeradii aan hayay labadaba maanta la garab taaganahay xisbiga wadani kaasoo aan ku raacnay mid ka muuqato inuu kii deegaankayga iyo dalkaba wax u qaban lahaa uu yahay